waxaan kaliya la socdaa in ciidan maleeshiya oo madax ka yahay xasan shire abgaal maleeshiyadiisi ay hogaaminayso inay galeen buurta karindiig intaas un baan la socdaa walaal hadda waxaa socda diyaar garow baa socda barnaamijkaas golayaasha deegaanka doorashooyinka golayaasha deegaanka oo muddo loo midlanaa waxaana qorshu yahay 5 bisha in diiwaangelinta ay bilaabato gobolada bariga ay ka bilaabato diyaar garowgaasaa jira wixii dawladda dhinaceeda ku xiraa oo dhanna dawladdu way maaragtay way meel marisay dhawaan ururada siyaasaddu waxay soo jeediyeen qodobo 13 ah oo tabashooyin ah dawladdu way ka jawaabtay shalay warqad ay soo saartay laba qodob oo ku xiraa dastuurka iyo xeerarka baarlamaanka oo aan furi karin mooyaane intii kale oo dhanna waa laga ogolaaday dadkuna de arrintaas imika diyaar loo yahay himilada reer puntland intaan muddo sugayeen marka barnaamijkaas halkaasuu maraya diyaar garowgiisa waa socda waayahay xisbiyada salugmada muujiyey oo ma laga maarmay iyaga oo aan iyagu weli qanacsanayn cid laga maarmay ma jirto ururadu de siyaa waxay soo gudiyeen tabashooyin qoraal ah oo 13 ah waa laga jawaabay qodobadii wixii ay tabanayeen marka laba qodob mooyaane intii kalena waa laga qaatay labada qodobna laba ku xiran dawladda ma bahaba waa in dastuurka la bedelo ama shuruucda maaragtay la bedelo baarlamaanka uu sameeyay oo shuruuc noocaas la wax dawladda hadda ku xiran ma aha intii kale waa la xaliyay haddii go-aankaas shalay dawladdu ka jawaabtay annaga jawaabtana iyagii kama hayno marka ciddii doorashada iskeed u diidan oo sideeda u diidani iyadaa soo bixi doonta macalixana soo bixi doona baa la yidhi laakiin wax lagu marmarsiyoon karo oo hadda miiska yaalla oo dawladda ku dhimani ma jiro diyaar ma u tihiin idinka inaad la fadhiisataan oo la hadashaan dadka weli tabashada qaba oo ururada ay siyaasadda ay ka mid yihiin waa lala hadlayaa diyaar baa unahay labadu waa furan yihiin sida mashruuca dawladnimada iyo doorashadaba waa la wada leeyahay wax dadka reer puntland leeyihiin wey wax cid sheebka ugu jira maaha isku daydaan idinku marka inaad la hadashaan tabashooyinka jira mise cid tabasho qabta weli kama warhaysaan maya waa lala hadlay ururadaasaan ka hadlaya ururada laysansiga siyaasadeed haystaan ka hadlaya oo de isu tegay oo qoraalka soo saaray taa way midda laga jawaabay lagana la hadlay marka ciddii kaloo tabasho qabto aan kuwaas ka mid ahayn iyadana waa la arkayaa markeeda markii la ogaado cid kaloo noocaas ah laakiin iyaga waaba lala hadlay waaba lala fadhiistay waa lagala dooday waana laga jawaabay wagaag wasiir gobolka nugaal maanta waxaa la sheegayaa inay ka taagan yihiin xiisado la xiriira tabashooyinka doorashada maxaad kala socotaan arrimaha waxaan kaliya la socdaa in ciidan maleeshiya oo madax ka yahay xasan shire abgaal maleeshiyadiisi ay hogaaminayso inay galeen buurta karindiig intaas un baan la socdaa marka jidgooyadaas un baan la socdaa halkaa ciidanka uu ku abaabuliyay xasan shire aan la socdaa taasna dee talada iyo qorshaheeda laga yeelanaya dadka reer nugaaleed baan laga rabaa inay xabadda u horseedayo gurigoodii baa laga rabaa inay iyaguna tala ka yeeshaan dawladduna qorshayaasheeda ka gelisaa xasan shire siyaasi ayaan ku naqaanay goormuu hogaamiye maleeshiyada isu bedelay si aad ku eedeynayso waa su-aal wanaagsan isaga in la weydiiyo weye maleeshiyadii waa hogaaminaya waana ciidankiisii isagana afta iga qatay aniga intuu igu soo waco yiri dagaal baan gelaya ciidankiina halkaas uu dhigay xalay maxaa marka ujeedku yahay wallahi isagaa la weydiinaya waxaa sababay isagaa la weydiinaya marka intaas un baa ka jira dee nugaal taaka wax kale kama jiraan waayahay waa eed culus eedan iyo aad siyaasiga usoo jeedinayso o aad leedahay maleeshiyaad buu meel dhigtay maxaa dadku ay aad ugu caddayn kartaa hadda wasiir ku dhegaysanaya dee ciidankiisi baa jooga aagga ciidankiisii askartiisi baa jooga oo xalay guureeyey oo karindhiig galay oo lagu og yahay isagaana afka igala soo hadlay telefoonka ii sheegay inuu sidaas samaynayo intuusan ciidanka dirin xaqiiqada intaa ka bisana dee u baahan tahay dee isaga weydii isagaa kale arfeesha laga rabaa oo ciidankiisa maxaad ula jeedaa ma staafkiisa khaaska baad ula jeedaa ciidan kale u wararsan miyaa jira oo leeyahay waa kuwaas taliyayaashiisa ciidankiisa isaga gaarka u oo ilaaladiisa ahay ka dawlad ahaan marka maxaa idinka idin qorshaa dee dawladda qorshaheeda iyo reer puntland waa jidgooyo waa loo geli jiray dawladda weligeedba ya marka dee waxa uga qorshaa iyada u taallaa iyada u taallaa dawladdii adiga hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeedii ah marka iyada u taallaa maxaad ula jeedaa sheegada waxaasaan samaynaynaa waxa dhacadi weydiisa aniga moogta dawladdu dee arrin amni weeye marka wixii la xiriira dee taas waa dee waa dawladda qorshaheeda iyo hawlaheeda dee ka sheegi mayso idaacadaha moogta